jaamacadda Islaamiga oo lagu yaqaan waxbarasho tayeysan lana furay sanadkii 2001 kana qalin jabiyeen arday tiro badan waxay ugu bishaareynaysaa dhammaan ardayda ka qalin jabisay dugsiyada sare sanadkan isla markaasna jecel inay waxbarashadooda sii wataan ilaa heer jaamacadeed inay ka helayaan jaamacadda Islaamiga waxbarasho tayo leh iyadoo ka howlgalayaan jaamacadda professor aqoon durugsan u leh maadooyinka ay dhigayaan. Jaamacadda Islaamiga waxay ka kooban tahay 6 kuliyadood oo kala ah kulliyadda shareecada iyo qaanuunka oo leh takhasusyadan kala ah qaybta fiqiga iyo usuushiisa, qaybta shareecada iyo qaanuunka, kulliyadda dacwada iyo usuuludiin oo leh takhasusyadan kala ah qaybta alkitaab wa sunna, qaybta xadiidka iyo culumtiisa, qaybta quraanka iyo culumtiisa, qaybta caqiidada, qaybta dacwada iyo iclaamka, kulliyadda waxbarashada oo leh takhasusyadan kala ah qaybta luqadda carabiga, qaybta math and physics, qaybta biology and chemistry, qaybta juqraafiga iyo taariikhda, kulliyadda dhaqaalaha iyo maamulka oo leh takhasusyadan kala ah qaybta cilmiga bangiga islaamka, qaybta culumta maamulka ganacsiga, qaybta dhaqaalaha, qaybta xisaabaadka, kulliyadda cilmiga kombiyuutarka oo leh takhasusyadan kala ah computer science, information technology. kulliyadda daraasaadka sare jaamacadda Islaamiga waxay ka kooban tahay 3 barnaamij oo kala ah barnaamij الدبلوم العالي، دبلوم عالي في القانون، دبلوم عالي في القضاء والتحكيم، دبلوم عالي في التربية، برنامج الماجستير، ماجستير في الفقه، ماجستير في أصول الفقه، ماجستير في الحديث وعلومه، ماجستير في اللغة العربية، ماجستير في المناهج وطرق التدريس، ماجستير في التخطيط والإدارة التربوية، برنامج الدكتوراه، دكتوراه في الفقه، دكتوراه في أصول الفقه، دكتوراه في الحديث وعلومه، دكتوراه في اللغة العربية، دكتوراه في المناهج وطرق التدريس، دكتوراه في التخطيط والإدارة التربوية. sidoo kale waxa ay jaamacaddu leedahay barnaamij aqoon dirsi ah oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan ardayda shaqaysa kuwa ku nool gobollada dalka iyo dalka dibadiisa. Shuruudaha looga baahan yahay ardayga jaamacadda waa sida tan: shahaadada dugsiga sare, 8 sawir oo midab leh nooca teesarada ah, warqadda dhalashada, warqadda asluub wanaaga, warqadda sugnaanta, lacagta diiwaangelinta, inuu ka gudbo imtixaanka qabuulka. Wixii faahfaahin dheeraad ah ka dheeho xogta ka soo muuqata shaashadda. Isdiiwaangelintu way socotaa ee hore u gaar xarumaha jaamacadda Islaamiga